السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaad ku soo dhawaataan casharka saddexaad ee koorsada Microsoft Word. waxaan casharkan uga hadlaynaa waxa uu yahay start screen-ka ee uu MS Word leeyahay iyo sida dokumenti cusub oo blank ah loo sameeyo. marka aad soo furato MS Word, shaashadda ama interface-ka ka soo horbaxaya oo sidan oo kale u muuqda ayaa la yiraahdaa start screen. start screen-ka wuxuu ka kooban yahay dhowr qaybood. sida caadiga wuxuu ku joogaa qaybtan ay home ku qoran tahay. home markaad joogto waxaad ku arkaysaa optiono dhowr ah. sida waxaad ku arkaysaa qaybtan kore uu cinwaankeeda yahay new oo ah optiono aad dokumenti cusub ku samaysan karto. haddii aan hoos u degno waxaad arkaysaa qayb labels ah ama tabs ah. sida caadiga wuxuu ku joogaa qaybtan ay recent ku qoran tahay. tabkan ay recent ku qoran tahay waxa kaaga soo muuqanaya dokumentiyadii ugu dambeeyay ee aad MS Word ku dhex adeegsatay ama aad ku soo furatay. haddii aadan dokumenti ku soo dhex furan wax dokumenti ah kaagama soo muuqanayaan. aniga saad u jeedo waxaa halkan iiga muuqda hal dokumenti oo book 1 ay ku qoran tahay oo ah dokumenti aan hore u adeegsaday. haddii dokumentiyada halkan kaaga soo muuqda aad right click ku siiso waxaa kuu soo baxaya dhowr option. optionka koowaad oo ah open, haddii aad click ku siiso dokumentiga ayuu kuu soo furayaa. optionka labaad waa open a copy. haddii aad optionkan doorato ama aad click ku siiso wuxuu copy kaaga qaadayaa dokumentiga kadibna copygaas ayuu kuu soo furayaa. optionkan delete file ay ku qoran tahay haddii aad doorato dokumentiga computerkaaga ayuu ka tirayaa. optionkan copy path to clipboard haddii aad doorato wuxuu copy kaaga qaadayaa pathka dokumentiga uu kaga jiro computerkaaga. optionkan pin to list haddaad doorato dokumentiga wuxuu kuugu darayaa qaybtan ay pinned ku qoran tahay ama dokumentiga ayuu pin kuu saarayaa. optionka ugu dambeeya ee ah remove from list asigana haddii aad doorato wuxuu dokumentiga ka remove garaynayaa listigan ama qaybtan ay recent ku qoran tahay. haddii aan doorano optionkan pin to list ay ku qoran tahay oo aan tagno labelkan ama tabkan ay pinned ku qoran tahay waxaad arkaysaa in dokumentiga aad pin to list soo dhahday uu halkan kuu soo galayo. sidoo kale haddii aad rabto inaad dokumentiga binka ka qaado ama aad ka saarto qaybtan pinned ay ku qoran tahay waxaad keliya right click ku siinaysaa dokumentiga kadibna waxaad leedahay unpin from list. kadibna saad u jeedo dokumentiga wuu ka saarayaa qaybtan. haddii aan tagno qaybtan ay new ku qoran tahay sidoo kale waxaad ku arkaysaa qayb cinwaankeeda new ah oo aad blank dokumenti ka samaysan karto iyo qayb kale oo templates ah oo aan casharada xiga uga hadli doono. haddii aan tagno qaybtan ay open ku qoran tahay waxaad arkaysaa optiono aad dokumenti ku soo furan karto. sida caadiga wuxuu ku joogaa qaybtan ay recent ku qoran tahay. waxaad halkan ku arkaysaa tab documents ay ku qoran tahay oo ay kaaga soo muuqanayaan dokumentiyadii ugu dambeeyay ee aad soo furatay iyo kuwa aad bingaraysay ama aad binka saaratay. sidoo kale haddii aad tagto tabkan ay folders ku qoran tahay waxaa kaaga soo muuqanaya foldarada ay ku jiraan dokumentiyadii ugu dambeeyay ee aad adeegsatay. waxaa laga yaabaa inaad hoos ku aragto batoonkan ay recover and save documents ku qoran tahay. haddii aad click ku siiso wuxuu kuu soo saarayaa dokumentiyada la close gareeyay ayagoo aan la save garaynin. optionkan waxaad adeegsan kartaa adigoo dokumenti diyaarinaya uu computerka kaa damo dokumentigana aadan save garaynin. markaad computerka dib u shidato waxaad recover ku samayn kartaa dokumentigii aadan save garaynin adigoo adeegsanaya batoonkan. qaybtan OneDrive ay ku qoran tahay haddii aad tagto waxaad ku xiran kartaa akoon OneDrive ah kadibna dokumentiyada OneDrive-ka kuugu jira ayaad halkan ku soo dhex furan kartaa. qaybtan this PC ay ku qoran tahay waxaad ku arkaysaa qaybaha iyo foldarada kala duwan ee uu computerkaaga leeyahay si aad uga dhex doorato dokumentiga aad rabto inaad soo furato. qaybtan add a place ay ku qoran tahay waxaad ku darsan kartaa meel cusub ee aad dokumentiga ku soo furan karto. dhammaan qaybahan aad u jeedo waa adeegyo cloud ah. haddii aad dokumentiyadaada adeegyada mid ka mid ah aad ku keydsatid halkan ayaad kaga soo darsan kartaa. haddii aad browse kale ku siiso waxaa kuu soo kacaya window ama daaqad jar ee aad ka dooranayso dokumentiga aad rabto inaad soo furato. haddii aan tagno qaybtan account ay ku qoran tahay waxaad qaybtan midig ku arkaysaa macluumaad la xiriira office-ka kugu jira sida inuu office-kaaga activate garaysan yahay iyo in kale. sidoo kale haddii aad click ku siiso office updates waxaad ku arkaysaa linkiyo update-ka office-ka la xiriira. haddii aad about Word click ku siiso waxaa kuu soo baxaya macluumaad Word-ka la xiriira sida versionkiisa iyo license-kiisa iyo wax la midka ah. qaybtan bidix haddii aan u gudubno waxaad arkaysaa batoon yar ee manage settings ay ku qoran tahay oo ku hoos yaala account privacy.
haddii aan kali ku siino sidoo kale wuxuu kuu soo saarayaa arrimo privacy-ga la xiriira oo inta badan aadan u baahanayn inaad fiiriso ama aad wax ka beddesho. hase yeeshee halkan ay ku qoran tahay office theme, haddii aan dropdownkan kali ku siino waxaad arkaysaa inuu kuu soo saarayo optiono dhowr ah oo themes ah. themeska waa designo kala duwan ee uu officeka leeyahay. tusaale ahaan haddii aad doorato daaggaray saad u jeedo softwareka designkiisa ama kalarkiisa wuu isbedelayaa. dhammaan optionada themeska waad tijaabin kartaa kadibna kii ku cajabiya ayaad ku aadisanaysaa. halkan ay sign-in ku qoran tahay waa halkii aad kaga xiran lahayd accounti oo Microsoft ah haddii aad leedahay, laakiin casharkan ogama hadlayno sida account loogu xirto. halkan feedback ay ku qoran tahay waxaad ku arkaysaa optiono feedback-aga ee softwarekan la xiriira aad ugu gudbin karto shirkadda Microsoft. qaybtan ugu dambeysa oo ah halkan ay options ku qoran tahay, haddii aad kali ku siiso waxaa kuu soo bixi doona optionska uu MS Word leeyahay. hase yeeshee casharkan optionska ogama hadli doono, casharada soo socda ayaan si dhammaystiran uga hadli doonaa. ugu dambeyn waxaan ka hadlaynaa sida dokumenti cusub oo balaanki ah loo sameeyo. sida aan casharka bilowgiisa uga soo hadalnay, haddii aad joogto pageka home waxaad ku arkaysaa optionkan ay balaanki document ku qoran tahay. sidoo kale haddii aad tagto qaybta ama pageka new waxaad sidii oo kale ku arkaysaa option ay balaanki document ku qoran tahay. haddii aad optionkaas doorato ama aad kali ku siiso, saad u jeedo waxaa kuu samaysmaya dokumenti cusub oo balaanki ah ama eber ah. waxaan rajaynayaa inaad wuxuun ka faa'iiday casharkan. waxaan casharka xiga si guud ahaan uga hadlaynaa interfaceka uu MS Word leeyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.